Baarlamaanka Maamulka Waqooyi Bari ayaa maanta yeeshay kulan aan caadi ahayn kaasi oo lagu go'aamiyey in xilka laga qaado 5 xildhibaan oo ka tirsan Golaha Wakiilada kuwaasi oo habeenkii xalay si rasmi ah ugu dhawaaqay inay iska casileen xubinnimadoodii. Go'aanka baarlamaanka ayaa yimid kadib is-casilaadii ay xildhibaanadu shaaciyeen taasi oo abuurtay xaalad siyaasadeed oo cusub oo ka dhex taagan maamulka. Mudanayaashii is-casilay ayaa hore u sheegay in go'aankooda uu salka ku hayo cabashooyin ay ka qabeen habka loo maamulayo iyo hoggaanka iyo sidoo kale arrimaha la xiriira sida ay u shaqaynayaan hay'adaha maamulka. Kulanka maanta ee baarlamaanka ay ansixiyeen ayaa xubnahaasi looga xayuubiyey xilalkoodii iyadoo la sheegay in tallaabadaasi ay waafaqsan tahay xeerarka u degsan golaha. Faahfaahin rasmi ah oo ku saabsan sida loo buuxin doono kuraasta bannaan ama tallaabooyinka xiga ayaan weli la shaacin. Wararka soo baxaya ayaa sidoo kale sheegaya in 5 xildhibaan ay gaareen deegaanada ay maamusho Somalilan halkaasi oo la sheegay inay isku dhiibeen maamulkaasi. Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maalmihii u dambeeyey ay jireen warar iyo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo la xiriira xubnahaasi waxaana la sheegay inay raaceen jidkii ay hore u martay Fahime Yuusuf Quuje oo iyaduna horey ugu biirtay maamulka Somalilan. Si kastaba ha ahaatee ilaa iyo hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay xildhibaanada is-casilay ay kaga falcelinayaan go'aankooda baarlamaanka ee xilka looga qaaday mana cadda waxa ay noqon doonaan tallaabooyinkooda siyaasadeed ee xiga. Dhacdadan ayaa muujinaysa xiisadda siyaasadeed ee ka taagan maamulka Waqooyi Bari, jahawareerka siyaasadeed ee ay gashay maamulkaasi.